ducooyinkan waa saddex duco intiiba la helayo qof ku duceysto Allah subxaanahu wa tacaala aqbalkeeda ma ku waynayo. Aniga ayaa hadda ka hor qof iigu dhaartay, wacad alle ayuu iigu maray in ducooyinkan mustajaabe ay yihiin, isagana uu tijaabiyey, anigana waan tijaabiyey. wacad alle ayaan idin marayaa. waxaan leeyahay, waxaan ku dhaaranayaa allaha samaawaadkan tiir la'aan taagay, arladanna gogley, ku firdhiyey jinni iyo insi, geedahana soo saaray, ayaan ku dhaaranayaa saddexdan duco qofkii ku duceystay Allah subxaanahu wa tacaala haddii uu ku jiray ciriiri waa uu ka qaadayaa, haddii uu ku jiray magaranaysaay murug ay haysay waa ka faydayaa, dayn haddii lagu lahaa alla waa ka gudayaa, dhibaato kastoo haysay Allah subxaanahu wa tacaala si degdeg ah ayuu uga faydayaa. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كسو دوادا شيخ ريمي channel. waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar, Allah subxaanahu wa tacaala waxaa idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh, adduunyo meelsan leh, aakhiro janno leh inuu ina siiyo dhammaanteena. aamin aamin aamin. allahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahla wa anta tajcalu lxasna idaa shi'ta sahla sahil muraadii wa muraad almuslimiin. rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasana waqina cadaaba annaar. asxaabta igu xiran waxaan leeyahay meel kastoo ay joogaan, muraadka aad leedihiin Allah idin sahlo, jannatul firdaws al-aclaa Allah idinku bishaareeyo, naartana ilaahay ma garanaysaay ha idinka xijaabo. muraadka aad leedihiin alla ka leedihiin ilaahay si degdeg ah ha idinku sahlo. qof walba meel ayuu ka ooman yahay, meeshuu ka ooman yahayna Allah ka waraabiyo. haddaba maanta waxaan idin hayaa walaalayaal, waxaa la yidhi hadday rag rabtaa ayaan maqli jiray, ducadaani haddeertaanay waxay rabtaa qof ku duceysto. duco waxaan ku hayaa mustajaabo ah, kaa anfacayso haddii aad ciriiri aad ku jirto, kaa anfacayso haddii aad murugaysan tahay, kaa anfacayso haddii aad deemaysan tahay, kaa anfacayso haddii adduunyada ay kaa hortimid, kaa anfacayso wax kasta, weliba natiijadeeda boqolkiiba boqol ah. waxaa la waayi karaa oo keli ah qof ku duceysta in la helo unbaa la waayi karaa. ducooyinkan waa saddex duco intiiba la helayo qof ku duceysto Allah subxaanahu wa tacaala aqbalkeeda ma ku waynayo. aniga ayaa hadda ka hor qof iigu dhaartay, wacad alle ayuu iigu maray in ducooyinkan mustajaabe ay yihiin, isagana uu tijaabiyey, anigana waan tijaabiyey. wacad alle ayaan idin marayaa. waxaan leeyahay, waxaan ku dhaaranayaa allaha samaawaadkan tiir la'aan taagay, arladanna gogley, ku firdhiyey jinni iyo insi, geedahana soo saaray. saddexdan duco qofkii ku duceystay Allah subxaanahu wa tacaala haddii uu ku jiray ciriiri waa uu ka qaadayaa, haddii uu ku jiray magaranaysaay murug ay haysay waa ka faydayaa, dayn haddii lagu lahaa alla waa ka gudayaa, dhibaato kastoo haysay Allah subxaanahu wa tacaala si degdeg ah ayuu uga faydayaa. keli ah mar horaan idiin soo sheegay, waxaa la waayi karaa oo keli ah in qof ku duceystaa la waayo unbaa la waayi karaa, laakiin intaba la helayo qof ku duceysto Allah subxaanahu wa tacaala aqbalkeeda ma zeeraynayo. waxaana u dhaaranayaa kalsooni aan ku qabo, dhaarteeda ayaan u baarinama samaynayaa. haddaba videogan ayaad ku ogaan kartaa saddexda duco aan kuu sheegayo ilaa dhammaadkiisa. la soco, maqal iyo muuqaal ayaan kaaga soo dhigayaa. haddii aad ka heshidna liketa hanaga xasdin ee sidii roobka inooga yeel.
subscribe-na soo dheh nagu soo biir, gambeelkana furo si ay kuu soo gaaraan wax kastoo cusub aan soo gelinayno insha allah. sheerna gareey si aad u hesho addaala cala alkhayri ka faacili. haddaba waxaad iga sugtaan waa ducadii. waxaan kaloo idin sheegayaa masjidkii sibidh aruurintiisa ama shamiinda aruurintiisa weli way socotaa. 40 kiish oo shamiinda ah ayaan ku guulaysanay, 100kii kiish aan dalbanay. waxaana inoo dhiman 60 kiish ayaa inoo dhiman. hal qof ahlu iimaan ah ayaa bixin karo. halkii kiishna waa $11 insha allah biidnillaahi alkariim. maalmaha soo aadani waxaan rajaynayaa in 60ka inoo dhiman aan heli doono. waxa ay dhici kartaa in dad badan lambarkeena ma garanaysaa lambarka meesha aan ku soo qori jiray ay ku soo wareereen, amaba dadka qaar waxay dhahaan wuu soo celinaya, dadka qaar waa diidan yahay ay dhahayaan. lambar cusub ayaan ma garanaysaa maanta soo yeerinaya, maadaama lambaradeena hore dad badani ay ku wareereen insha allah biidnillaahi alkariim. dadka qaar ay dhahayaan ii sheeg adiga wuu diidan yahay, bal lambarkan ayaan ku tijaabinaynaa. lambar cusub waaye, magac kale ayaa ku qoran insha allah. magac kuu soo baxayana waan kuu sheegayaa, lambarkana waan kuu sheegayaa. 60ka kiish ee dhiman si aan magaranaysaa si degdeg ah aan ugu helno insha allah. lambarka waa 2526 marka la dhaho 7 ayaa la leeyahay 3 eberaad 938 waa 7 eber 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 938. iska soo hubso inta aadan magaranaysaa aadan soo dirin. haddaba waxaan kuu soo gudbinayaa ducooyinkii si fiican iila soco. ducada koowaad waxay tahay: yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astagiith aslix lii sha'nii kullah walaa takilnii ilaa nafsii طarfata cayn. oo loola jeedo yaa xayu yaa qayuum, allihii xayiga ahaayoo noolaayow. yaa qayuum, allihii addoommadiisa maamulkooda u taagnaayow. biraxmatika astagiith, naxariistaada ayaan gargaar ka dalbayaa. aslix lii sha'nii kullah, sha'nigayga, umuurtayda, arrimahayga dhammaantooda wanaaji. walaa takilnii ilaa nafsii, nafsadayda ha ii tala saarin طarfata caynin, ilgibirsi ama ilbiriqsi nafsadayda ha ii tala saarin. yacni taladayda nafsadayda ha u dhiibin, ilaahayow taladayda adiga ayaan kuu dhiibtay. ma ujeedaa? waa ducada koowaad. ducada labaad ayaan u gudbaynaa, waxaana ay tahay: laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim, laa ilaaha ila allahu rabu alcarshi alcadiim, laa ilaaha ila allahu rabu alsamaawaati warabu alardi warabu alcarshi alkariim. oo macnaheedu uu yahay laa ilaaha ila allah, alla xaq lagu caabudaahay ma jiro, alla xaq lagu caabudaahay ma jiro ila allah, alla mooye. alcadiimu, allihii weynaa. alxaliimu, allihii dulqaadka badnaa. laa ilaaha ila allah, alla xaq lagu caabudaahay ma jiro, alla weyn mooye. rabu alcarshi alcadiim, allihii carshiga weynaa u saaxiibka ahaa. laa ilaaha ila xaq lagu caabudaahay ma jiro ila allahu, alla weyn mooye. rabu asamaawaat, 7 samo allihii uumay ah, iyo warabu alardi, iyo 7 arle allihii uumay ah. warabu alcarshi alkariim, carshiga weyn allihii uumayna ah. allahaasi ayaad kacsanaysaa, ayaad taladaada u dhiibanaysaa. ducada saddexaadna waxay tahay: allaahumma innii cabduka ibnu cabadik ibnu ammatik naasiyatii biyadik maadin fiya xukmuk cadlun fiya qadaa'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ومعنى هذا وياهي اللهم الله يو إني أنيق عبدك أدونك أيان أهي ابن عبدك، يعني أدونكاغا ويلكيسا أيان أهي. ابن أمتك، أدونتاذا ويلكيدي أيان أهي. ناصيتي فوديدا بيدك، أذيق عنتاذا كجرتا. مامولكيغا يا أذيق أيا اسكاله. ماضن وحا إيغو سعنايا فيا أنيغا
xukmuk xukunkaaga ayaa igu soconaya waxaad igu xukunto ayaan magaranaysaa raalli ka ahay waaye cadlun waxaa cadaalad igu ah fiya aniga qadaa'uk qadahaaga ayaa cadaalad igu ah xukunkaaga igu soconaya qadahaaga ayaa cadaalad ii ah yani maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa cadlun fiya qadaa'uk qadahaaga ayaa igu soconaya waxa ay tahay ama cadaalad igu waxaa cadaalad igu ah xukun yani qadahaaga waxa weeyaan haddaad ixanuunjiso cadaaladaada ayay igu dhacday haddaad ciqaabto cadaaladaadu ayay yani igu dhacday ciqaabtaasi yani cadaalad waaye gardaro ma aha gardaro iguma aad samaynin allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah marka waa sidaas cadlun fiya qadaa'uk qadahaaga ayaa cadaalad igu ah as'aluka waxaan wax kugu su'aalanayaa bikulli ismin magac kasta huwa laka adig kuu sugnaaday magacaasoo samayta adiga aad magacaawday bihi magacaba nafsak nafsaada yacni nafsadaada adi isku magacaawday macnaha aw amase anzaltahu ama aad soo dejisay magacaasi fii kitaabi kitaabkaaga ku soo dejisay intii kutub ee jirtay magacyo ku soo dejisay oo adiga aad leedahay oo ani aan aqoonin ayaan wax kugu weydiisanayaa aw amase callamtahu adiga aad bartay axad oo min khalqik uunkaaga ka mid ah magacyo badanoo waxaa jiro allah subxaana wa tacaala u sugnaatay oo adiga aadan garanaynin ama kutubtiisa uu ku sheegay kutubtii hore kuwa aad taqaanid kan aad taqaanid iyo kuwa aadan aqooninbo lagu soo sheegay amaba waxaa jirto yani magacyo isaga yani addoommo isaga u gaar ah uu ku ilhaamiyey uu baray ee ilaahay wax ku weydiistaan uu wax ku siiyo waaye magac kastoo adiga aad leedahay oo kutubta aad ku soo dejisay amaba dadka qaas adiga aad bartay ayaan wax kugu weydiisanayaan ow amase ista'tharta aad la gooni yeeshay bihi magacaasba fii cilmi alghaybi cilmi alghaybka aad ula gooni yeesho cid aadan barin oo yacni fii cilmi alghaybi cindaka agtaada ay ku qarsan yihiin oo qayb ay ku yihiin ayaan wax kugu su'aalanayaan maxaan ku leeyahay an tajcala inaad ka yeesho alqur'aana qur'aanka rabiica qalbigayga gugiisa yacni gu iyo dayr soo ma jirto gugiisa ka dhig waaye qalbigayga yacni rabiic uga dhig wa nuura sadri laabteedana inaad adiga nuuriso ayaan ku su'aalaya ama qur'aanka laabteeda aad ku nuuriso wa jalaa'a xusni iyo inuu iga faydo murugteyda iyo wadahaaba hammi iyo in uu iga tagsiiyo welwelka iyo hamiga ihaayo culeyska ihaayo inuu iga tagsiiyo saddexdaas duco ayaan kuu soo gudbiyey qof ku duceysta ayaa lalayahay moogay iyaga waa afka hore hadday rag rabtaa waa tii markii hore aan ku soo dhahaye ducadan hadday qof ku duceysta ay rabtaa ayaan ula jeedaa laygtiina aan ka arko waxaan helay nafci shaydaan ay ka ahdeen waxaan ugu talagalay ma aha waxaan hagaajiyena allah ajar naga siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu